qayb oo muhiim u ah bulshadeena Soomaaliyeed oo wacyigelin ah maalmahan qof walba oo adduunka joogo wuxuu la socdaa waxyaabaha oo dunida ku soo kordhay mucjiso iyo musiibo oo xaq alla ka imaatay qadar alla qofku alla u qoray ay ku dhacayaan hase ahaatee afli waxa u jeedid ma geli kartid waxa loo baahan yahay taxadir iyo inaan la isdigan fadlan walaalayaal mar walba ama xilli walba oo gurigaaga imaatid ama meel yar aad taawatid gacmahaaga iska dhaq gacmaha waxa ku dhaqdaa shaambo ku dhaqee marka waa ina waxyaabo alcohol oo bacteria iyo virus ku dilay waa ina marsataa mideeda kale waa ina kala fogaatiin ugu yaraan wax la eg 2 mitir in la eg ina kala fogaatiin arintan ma qosayso dadka lamaanaha ah oo isjecel oo isdoortay dadkaasi way isku kalaan kalmi karaan shab way isdhihi karaan waa dad caadi oo ilaahay isku qadaray isku qoray dadka caadiga ilkaha ku socda ka hadla marka insha Allah ta'ala waa ina dadaalna xaaladda way adkaatay inkastoo anaga Soomaali aan nahay oo cagaarisho iyo tifo iyo kaduudiyo iyo waayidii hore naga soo badbaadnay oo mishaariic cuni jirnay marka hadda maadaama adduun hormaray oo aan joogno qaaradda Awroba marka waxa waaye ina qarashaan uu soo baxay ina aad u taxadirna ayaa fiican oo aad isku ilaalino caafimaadka run ahaantii waa shay qaali ah fiidiyogan waxa uu kale fiina la soo dhunto magaalada ka soo baxo si idinka wax idin faasiyo duurka oo imaado meel cidla ah wax idin ku sheegay u dhageysan kartiin marka halkaan ku qawo waa duur waxa way guri kaama dambeeyay laha wayna fiicantaa mararka qaar dadka oo isgaadgaadka isku haya meeshan arimahooda sirta inay ku dhameystaan ay isku imaadaan waa meel aad u wacan marka intaas ugu bixina insha Allah ta'ala marka kuwaana qaato Allah idinka dhigo hadalka aniga idin soo jeediyo walaalayaal waana mahadsantiin dulqaadka iyo sharafta ay u fiirsateen ma sha Allah